mahad celinayaa waan yani aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha gobolka Togdheer gaar ahaan reer Burco sida diiran ii soo dhaweeyay isxilqaamay gartay inay maxay soo dhaweeyaan runtii yani aad iyo aad baan maxay ugu faraxsanahay waxa weeye waana maxay mahadsantihiin barakallahu fiikum hore maxay shir jarayd baan u qabtay waxa weeye waana maxay mahadnaqay cidii mahadda lahayd Allah baa ka koow ah ilaaha suura galiyay inaan xorriyadeedii dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh yani runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo yani ii fidiyay cafis madaxweyne waxaan leeyahay ilaahay khayr kuwa balmariyo hadaad maxay tahay garatay waxaan kaloo u mahad celinayaa yani cafiska madaxweynuhu go'aanka ku qaatay dadkii yani maxay ku dhaliyay ee ku dhiirigeliyay ee u soo bandhigay waxaan u sheegayaa maxay dadweynaha Burco iyo Togdheer de kulli waxa weeye bilay ahayd intii aan maxay socotay maxkamaddu iyo intii aan xidhnaaba waxa weeye waxaan idin soo gaaray Cabdimaalik Soomaaliland buu ka soo horjeedaa waxba aad ka idin soo gaaray Cabdimaalik qarannimada ayuu ka soo horjeedaa Soomaaliland yani arrimahaas oo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay Cabdimaalik ma soo horjeedo maxay Soomaaliland waxa weeye waa wax maxay wax u eeg la sameeyay oo dadka maxay loo muujiyay ama la dhaxgaliyay si leega hor istaajiyo arrimo badan oo aan cadawga Soomaaliland gacanta ku fiiqay farta ku fiiqay si arrinka loo khalkhal geliyo ayaa waxa weeye la isku dayay in ikhtiyaar shakhsiyadeeda la dilo